ninkaygi baan kala tagnay kadibna waan ku soo ceshaday buu yidhi anigu raalli kama ahayn maxay arrintaas noqonaysaa masalada soo ceshiga ninkaagu marba haddii ciddada adoo ku jira ku soo ceshaday hal dalqadna markii hore uu kugu furay ama dalqadii labaad uu kugu furay asagoo wax u dhiman yihiin oo dalqada u dhiman yihiin hadduu ku furay ciddadiina aadan weli ka bixin soo ceshiga waa xaq u leeyahay waa quraanka si cad u sheegay masalada ayada wa bu'ulatuhunna ahqqu bi raddihinna fi dhalik inta ciidada ku jirto ninkeeda u xaq la soo ceshiga adiga ama jeclo ama jeclana ama doon ama doon waa ku soo ceshida haduu dhaw ku soo cesho xaaskiisi baad hadhow ama adigu la dhaqan oo guri iyo gogol ogolow ama diido waxa tirada adeer kuma ogoli hawl kale way taas laakiin ma ugu xidmayo xarigii ma soo noqday jawaabtu waa haa oo mar rabe hawl ku taala waa rabidii rabilaantu waa mas'ala dambe laakiin xaaskii baa tahay waana ku soo ceshaday ninkani isagana xaq u leh masalada ayada allahumma hadii uu kugu furay wax uu ka qaatay hadduu kugu furay xoolo isiibu waa ku furaya sidoo aad xoolo ku siisay meerkii cafibu ku yiri waa ku furayaa meerkii baad cafiday xaq allahayd baad ka tanaasushay ilmaha oo xanaanadooda xaq u lahayd gacan ku hayntooda ayaa tiri waa kaaga tanaasulay oo wuxuu ku yiri hadaad ilmaha ii deynayso waa ku furaya xaqi baad u deysay sidaas uu kugu furay hadiiba xaqka oo ka tanaasushay ama wax aad siisay uu dhaafsaday furitaanka kuma soo xeshan karo laana marka waxbaad kala gadateen sooma waxbaad kala iibsateen asagoo wax ka iibsaday haddana shariicadu xaq u siin mayso soo cesho saas macna laakiin si dabiici oo caadi ah haduu ku furo marka soo ceshiga isaga xaq u leh dalqada koobaad iyo talabaad ta saddexaad hadaad ku tagto ayadana soo cesho warkeeda ma leh hada markaasi xor ah waa cidda tirsan kadibna cidii ilaahay ku qoraad guursanaysa wabillahi tawfiiq